madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaana maalinimada berrita uu ka qayb galaya madaxweynaha Jamhuuriyadda munaasabad ay ku qalin jabinayaan cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababaro ku qaadanayay dalka Uganda bilihii la soo dhaafay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta badan safaradiisa waxay ku saleysan yihiin taageero u helidda dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab ee dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliyeed ay doonayso inay ka cirib tirto waxaana dadaalka intiisa badan uu madaxweynuhu ku bixiyaa tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tababarkooda si ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay isugu filnaadaan amniga qarankana ay ugu filnaadaan khawaarijta dalkana ay uga xoreeyaan ugana cirib tiraan.